wafdigan ballaaran uu hogaaminayo taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanle sare Xasan Ducisow Xasan ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa qayb ka ahaa saraakiil ciidan oo isugu jirta boolis iyo military. garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay wafdigan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida. taliya ku-xigeenka booliska Hirshabelle Colonel Xasan Maxamed Ibraahim Xasan Kaafi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka maanta ay ku yimaadeen Beledweyne. wafdigan uu hogaaminayay taliyaha booliska Hirshabelle gaashaanle sare Xasan Ducisow Xasan. sida aad la socotaan maanta waxaan magaalada Beledweyne ku soo dhaweynay soo dhaweyn weyn ugu sameeyay taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanle sare Xasan Ducisow Xasan oo sida aad la socotaan maadaama xilli doorasho lagu jiro gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. sida aan wax badan hore u sheegnay magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay goobaha 10 goobood oo dalka ay ka dhacayso doorashada. waxa waaye boolinka labaad ama maxuu ahaa xarunta labaad oo doorashada lagu qaban doono Hirshabelle Jowhar iyo Beledweyne. marka safarkiisan hadda Jowhar ka yimid waxa halkan u yimid waxa waaye inuu indheeyo xaaladda amni magaaladan iyo sidii maxuu ahaa diyaar garowgii doorashada sidii loogu qaban lahaa. taliyaha runtii si fiican aan halkan ugu soo dhaweynay maalmahaana sida aad la socoteen waxaan wadnay qorshihii amniga lagu sugaayay magaaladan si ay doorasho ugu dhacdo. hadda uu nagu soo biirana insha Allah waxaan qaban doonaa goobihii doorashada lagu qabanayaan indheyn doonaa amniga magaaladan si wada jir u wada shaqeyn doonaa maadaama lagu guda jiro xilligii oo doorashada. waxaan ka shaqeyn doonaa sidii musharaxiinta iyo ergada magaaladan loogu soo dhaweyn lahaa ammaankooda loo sugi lahaa. waxaan rajaynaynaa sidii aan hore u codsanaba in bulshada ku dhaqan degmada Beledweyne ay gacan weyn ka geysato sidii maxuu ahaa ay halkan doorashadaas ugu dhici lahayd. taliyaha waxaa safarkiisa ku weheliyay saraakiil booliisa iyo saraakiil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaga laftigooda muxuu ahaa gudiyadaas oo amniga dowlad goboleedka Hirshabelle oo doorashooyinka ka shaqeynaya